kiisaska ugu dambeeyay dalka ka dhacay waxa kamid ah kiiska imika halkan laga xusay agal la yiraahdo nin Chinese iyo maxaa la yiraahdaa dad muwaadiniin dalka u dhashay ayaa runtii ku lug lahaa muddo 7 bilood u socday ilaa 2 milyan iyo 700 ku baa dalka laga dhacay arrimahaasi runtii waa arrimo khatar ku ah qaranka waa arrimo khatar ku ah dhaqaalaha dalka bulshada ku baraarujinayna arrimahaas inay aad uga digtoonaadaan arrimahaasi waa arrimaha loo yaqaan chief of shaqada runtii maanta shirkan jaraa'id aynu halkan ku qabanayno waa wacyigelin waa shir wacyigelina sida la socoteen muddooyinkii u dambeeyay dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku soo badanayay dambiyada abaabulan ee ka dhaca dalka ee loo yaqaan financial crimes-ka dambiyadaas runtii dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkan aan maanta anigu afkeeda ku hadlayo afka bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo afka gudiga ka hortaga dambiyada maaliyadeed ee dalka ka dhaca oo ka kooban hay'ado kala duwan oo dalka ah sida booliiska xeer ilaalinta intelligence-ka wasaaradda maaliyadda dhamaantii waxaan halkan u joognaa maanta oo aanu bulshada ku baraarujinayna arrimahaas inay aad uga digtoonaadaan arrimahaas waa arrimaha loo yaqaan chief of shaqada ama arrimaha khamaarka ee one expert-ka iyo arrimaha la midka ee dhalinyaradeennii bariyahan dambe ay aadka ugu mashquulsan yihiin ay aadka magaranaysa ugu hawlan yihiin arrimahaasi runtii waa arrimo khatar ku ah qaranka waa arrimo khatar ku ah dhaqaalaha dalka waa arrimo khatar ku ah haynta bulshadeena waa arrimo khatar ku ah diinteena arrimaha chief of shaqada ama dhaqaalaha la doonayo in sida yare fudud looga faa'iido waxa weeyaan waa xaaraan shariicada islaamka sharciga dalkeena u yaalaana ma ogola halka waxa kale oo nala jooga boardkii sare ee bangiga boardkii shariicada ee bangiga horena fadwooyin uga soo saaray maanta halka wacyigelinta qayb ka ah waxa markaa bulshada uga digaynaa in arrimaha ka digtoonaadaan kiisaska ugu dambeeyay dalka ka dhacay waxa kamid ah kiiska imika halkan laga xusay agal la yiraahdo nin Chinese iyo maxaa la yiraahdaa dad muwaadiniin dalka u dhashay ayaa runtii ku lug lahaa muddo 7 bilood u socday ilaa 2 milyan iyo 700 ku baa dalka laga dhacay 130 qof oo muwaadiniin ayuu saameeyay runtii talaabooyinka qaadanay waxa kamid ah sida la sheegay inaan dabagal balaaran ku sameeynay oo xogtii oo dhan aanu soo helnay inta qof ee dhibaatada ku dhacday akoonada la dhaxmariyay akoonadii qaar la xanibay ninkii Chinese-ka ahaa ninka Chinese inuu xiran yahay kii labaad oo inta badan dambiiluhu weyn ah oo dalka ka fakaday Kenya sida aanu ku warhayno uu galay akoono Soomaaliya telefono Soomaaliya oo Puntland iyo Soomaaliya ka furan oo kaadhka ka registration u adeegsaday markii dambena uu lacagtii Kenya u wareejistay kiiskaas baaritaankiisii wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la wadaagnay dawladda China way la xiriireen Kenya way la xiriireen marka dabagalkiisu meel wanaagsan buu maray waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan aan ka gaadhno dambiilayaashana gacanta lagu soo dhigo muwaadiniinta dhibanayaashana maxaa la yiraahdaa wixii loo qaban karo loo qabto waxa ka digaynaa kiisaska noocaas dalka soo gali kara in aad looga digtoonaado oo muwaadiniintu aanay soo oran degdeg dhaqaale ku sameeya dhaqaalaha waxa weeye tacab lagu sameeyaa ka xoog waa la xoogsadaa ee lacag iska socoto oo la iska hela ma jirto marka qofka xoolihiisa halka ku aamina at the end of the day in la dhacayo waa inuu ku talagalaa kiisaska noocaas oo kale dadka ku jirana waxa weeyaan waan uga digaynaa sharciga la tiigsanaya waxa kale oo jirta lacag madow oo dalka indhaweyto aanu iyagana dagaal kula jirnay oo dalka soo galiyay oo dad badan loo xirxiray oo gacanta lagu hayo iyagana waa dambi cidii lagu qabto iyagoo arrimaha ku lug leh ama ka isle wax ka faa'iido ama ka shaqaysanaya muwaadiniin iyo ajnabiba ah waxa weeye dalka waa ka mamnuuc waa dambi sharcigana la tiigsanaya taana waxaan leenahay ka digtoonaada ayaan leenahay muwaadiniinteena Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxyaabaha kale ay ku jiraan waxa kamid ah one expert-ka wax la yiraahdo one expert oo khamaarkuna diinta halka uu kaga jiro iyo aayadaha Quraanka iyo nusuusta sharciga xaaraantinimayso weyn ognahay waxaan ka digaynaa in dadkiina iyo ehelkiina aad ku qoodisaan waxa xaaraanta aad one expert-ka ka helaysaan waxa weeye noloshiina uma wacna dhalinyarooy nolosha xaruutiina iyo xaasaskiina aad ku qoodinaysaan oo uma wanaagsana akhriya adduunba wad ku halaagsamaysaan iska daaya ayaanu leenahay oo si ilaahay weydiista kasab kale oo xalaal oo aad ka ganacsataan dalku inuu ku filan yahay wax badan oo aad ka ganacsataan wad helaysaan shaqooyin baad raadsan kartaan
iska daayaan u leenahay OneXBet-ka iyo arrimaha ku jirtaan waa xaraan maqdaca shirkadaha isgaarsiinta iyo dalka ka shaqeeya iyagoo waxaan u soo jeedinaynaa inay aad ugu dhug yeeshaan arrimahaas oo wax kasta oo ku saabsan financial crimeska oo shuruucdeenu ay dhigayaan oo xeerka anti-money laundering-ka uu dhigayo waxa weeyaan wixii suspicious transactions ee account-nadiina dhexmara inaad soo report garaysaan haddii aad soo report garayn weydaan talaabana ka qaadan weydaan dembiga meesha ka dhashay koowaad ka noqonaysan idinka qaadanaya waxa kale oo iyaguna jirta dad muwaadiniin oo dad ajnabiya oo aan identity-gooda si wanaagsan loo garanayn intay soo walwalaan dalka Kenya fiisayaal u qaadaya iyagoo isku qoraya hadhowna dembi markuu qofkaasi dembi galo laga baxsado isagoo dembiga ku dhacaya dadka muwaadiniintana waxaan uga digaynaa dadkan aad soo kaxaynaysan dalka keenaysan dad aad hubtaan keena xeerarka iyo shuruucda dalka si wanaagsan u marsiya immigration looga marsiya fiisayaasha markaad u qaadaysan haddaad qarisaan oo khiyaamo samaysaan khiyaamadaas hadhowto idinka ku soo noqonaysa immigration-kana waxaan aad iyagana ugu soo jeedinaynaa inay aad yani u verify gareeyaan oo u hubiyaan dadka ay fiisaha siinayaan dalka soo galaya inagoo aan lahayn dadka ajnabiga ee soo galaya hal la joojiyo oo soo dhaweynayna oo dalkeenu furan yahay in la soo galo oo inuu maalgashadayaal inoo soo galaan furan haddana dadka dambiilayaasha ah ee inagu soo gabanaya oo inaynu aad iyo aad uga magaranaysaa ugu baraarugsanaanaa indhaheenu furnaadaan shuruucda dalka aynu si wanaagsan u enforce garaynaa muwaadiniintana aad baan idinka rajaynaya inaad wada shaqayn wanaagsan hay'adaha ku shaqada aad la samaysaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.